هذا ترى عم شو وجعيل جل لا بأرس ما أدري هذه والله قلت مرة هذا دليتاريو حق واحد خربضي أيضا أور لإن لك رباشي إن لقوا مصيري إن بي الله كركريري حسن جعل kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo aan ku wareysanayno jila Cabdishukri Ghazal waa jila waa macallin oo dadka af Soomaaliga ayuu dabcan u bara oo bare barnaamijyo afka Soomaaliga oo dadka bara ayuu ka jeediyaa idaacadda Star FM iyo sidoo kale telefishinka STN waa jila oo ogtihiin ama in badan aad daawateen ama aad dhageysteen riwaayadaha oo jiro oo dabcan aad waxa weeye dad badan uga qosliya dabcan waa nin far badan weeye waxyaabo badan oo uu caan ku yahay in badan waxaan filayaa in aad TV-yada iyo baraha bulshada sida YouTube-ka iyo Facebook-ka aad muuqaaladiisa aad ku aragteen inta badan isaga ayaan su'aalo far badan weydiin doonaa barnaamijkan waxaa ka daawan kartaan Wadani Somali TV waa magaca lagu keeday wey oo wiilkan wata dhagan afariiq wadaniyadu ka soo horjeeda dhika Ghazal TV saaxiibkan jila wariye ustaad ama bare macallin Cabdishukri baa isagana waxa weeye iskale iyo soo kale jigjiga cable on filay in badan waxa weeye anoo soo taliiqan aad ugu aragteen Cabdishukri oo soo dhawow waan dhawaay waana mahadsantihiin farxad bay ii tahay maanta farxad weyn aan la soo koobi karin bay ii tahay laba walaalahay ah suxufiyiin ah aad ugu xil dheer dhinaca dhaqanka jecel dhulkooda de wadani mar hadaad aragtaan inkastoo kelmadda way ugu haystaa wadaniyada ninkan ma way waa TBDLF waa TBD waxaan ku mataqaanaa wadani macnaha wax fiican waaye laakiin hadda la joogo magaca nuxurka laga qaado ma dadku isku soo ma yaqaanaan ba wadani hadaa tiraan maxaa laga wadaa ma garan karaan ba dadku kelmadda waa kelmad mugweyn weeye marka waa dhawahay wadani Soomaali TV saddex magac oo waaweyn booda wiilku maxal yaa wadani Soomaali TV Soomaali TV oo wadani TV maska qato aad ma san tahay Cabdishukri oo dhinacaas iyo Qaasim dhinacaas waxa fadhiya Qaasim ma bada gacmaha ila kala garan lahayd waa tiri ani adigu kana kala garan lahayd dabdii dhaanaadaan oo dhaxay moogtahay wixii baad bidixnaas fadhiya lana ha marka dhinacaas uu fadhiya waan dhahaynaa kooraha luuqa dhinaca Qaasim ma fadhiya Qaasim wadani waa waxa weeye waa xadii doonta taro maxad mulkiilaha maanta mulkiilaha TV-ga ma waa agaasimaha wadani waxaan iska dhahay weeye barnaamijku waa barnaamij iskaftanaha wax badan aad ka faa'iidi doontaan oo dabcan xoogaa waxa ku jira qosol iyo maad oo dabcan maadaama uu jilaagi uu nala fadhiyo marka hadalladanada haddaad waa iska sheekaysi weeye wax badan aad ka faa'iidi doontaan kuwa badan laga yaabaa dabaq satur lahayn waxa laga yaabaa inay hadda yanta waa nagu badan tahay dabaq bismillah halis ma daaqayna marka aad istiraasi wax faayo walaal daaqayna dheer 8 ka degin guriga dhaadheer folo meelaha hoose wadanina iska daawo wadani Somali TV wax badan bay ka faa'iideen ha ku dajiya dhaqankii iyo ku dajiya aad marka waa tahay soo dhaw Qaasimow waan dhawahay waa markii koowaad wadani Somali TV lagu soo dhaweeyo adiga laftiga lagu soo dhaweeyo aad ma santahay horta aad baan u faraxsanahay inaan saddexdeena meesha soo wada fariisano Cabdishukri su'aalo far badan ay soo socdaan weydiin doonaa ninkan horta waa macallinkayga adiga macallinka quraan macallinka tooska soo hor fariismaan macallimiintu way macallinka dadban macallinka doorashada dadban macallin dadban macallina waa macallinka toos wax kugu baray si fiican macallina waa macallin meelaha isagoo jooga waxyaabahiisa iyo maarta casharada u bixiyo ka faa'iisto si fiican anoo gaaris jooga oo idaacad ka shaqeeya waliba manager ama maamula ka ah yaa ninkan barnaamijka idaacadda Star FM ka baxa ka dhageysan jiray si fiican maalinka raadiya barnaamijkaas oo afka Soomaaliga maalinka ku baxa waa imtixaan laga qaada waa la tarsiyaa dadka maalinba 10 baa la siiyaa isbuuciiba khamiistu ardadaas aad ku jirtay khamiis walba baxa khamiis kasta baxa ardada kuma jiro macnaha ardada dhageysta ku jiray laakiin kood imtixaan laga qaado imtixaan laga qaado wax baa ku jiro tanta kale ku wada jiro si fiican xilligaas ninkan muuqaaladiisa waan daawan jiray barnaamijkiisa waan dhageysan jiray laakiin aqoon kale ma aan lahayn marka Nairobi maada waxa ma 2019 hadda oo waxa weeyaan xafiiska noogu iman jiray sagiga igare halkan isku banan halkan majaajileysta aad ku qaabili jirtay marka dadka Nairobi aan ku bartay horena wax badan aan uga faa'iiday halkan markaan ku bartayna wax badan waxa weeye
aan ka faa'iiday waxa weeye uu ka mid yahay aad iyo aad Mahadsan. waa nin waa walaalkay waa saaxiibkay waa nin adigu dhow waxyaabahan aadka u jeclay waxa ka mid ah waa ninka waxa uu hibada ilaahay u siiyay aan qofna ka hagrin aad iyo aad haddaan maanta uu on dhaho cabdishukri walaal barnaamij casar ana kaa wareysto oo hibada ay alla ku siiyay baa marti kaaga ah waxaa laga yaabaa anigii wacayaba marka dambe inay aada i fuusho oo aan balanti kasoo bixi waayo laakiin isagoo mar walba oo diyaar ku yahay marka waa adigana adigu kuley ilaa farahay gelina dadka wareysana ka mid ah ogtahay ها اسود gacan dheer igu soo taagtay haay dadka wareysana ka mid ah adiga cidiyaha la iga duwalo asaasa cabdishukri horta aad maasan tahay aad mudan macalin maasan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adoo soo koobaya goorma igu ahayd markii kuugu horeysay ee aad aragtay inaad hibo u leedahay inaad wax ka qosliso oo entertainment ku fiican tahay inaan dadka ku fiicnaa inaan dadka madadaalo u sheego waa muddo aad u dheer waxay tahay 2004 ilaa 2003 baan soo bilaaba waxaan dhageysan jiray majaajilooyinka oo ahaa cabdi hayba lambad iyo maa caleesh iyo raggii rag ahaa ninkii dhiman jira oo boon xisi boodiyo gaab iyo raggii noocaas ahaa baan dhageysan jiray waxa waagaas dhulkeenna soo gaartay oo gobolladeennaas waqooyi bari soo gaartay RTD TV-gan Djibouti baa soo dan jiray halkaas marka intii aan TV-gooda ka soo daawado TV kale ma aqoon baan la imaan jiray dadka la hortay dhalinyarta markaas aan la hortay sidii oo kale aan oran jiray sida wax ay yiraahdaan oo kale markaas ay ahay intuu san ilka cas su'aasha ku laaban mid baan doctor ku sameynay mise jir baad cabdishukri niyo anigu xilliga aan dhashay horta toos anigu ma garanayo baadiyaan ku dhashay si fiican waxaana la yiraahdaa xilligii ninkii xereed magtiisii la qaatay ayaa dhalatay marka waxaad ila muddaa sanad dadku ay dilku ku yaraa sax inuu ahaabaad muddaa haddii kale lama qaban karo maalin dheelid hebel waa la dilaa laakiin waxa lagu leeyahay oo mag baa la bixiyaa laakiin maalintii reer hebel magtiisii la qaatay ayaa dhalatay waxaa laga garanayaa in beriga dilka iyo magbixintuba yaraayeen waa horeynay taa inaad dhashay waa tahay goormaad marka adigu intaad masrax soo istaagtay ama riwaayad aad si toos ah ama martay si rasmi ah aad u matashay ama aad u jishay marka laga rabo kuwii koobigaaya boon xilsiya boodiyo gaab iyo markaa ka soo tago jannada naxariis Allah siiyo annagoo dhan waa wada baahna Allah na wada siiyo amiin waxaan bilaabay 2000 iyo isla shantii baa waxaa noo yimid kuwa hay'adaha ka yimid Sanaag kuwii hay'adaha marka waxay yiraahdeen waxa idin dhisaynaa guri odayaasha aqalka odayaasha oo degmadu ay ku shirto markii danta laga hadlayo danta guud ah sax baa idin sameeynayna waan aragtay dhulku markuu burburo hay'adii balaayaa la aqoon kuwa sabun keenayay baa ordaya galeyda ma xilliga roobku oo dhulku sida dhibicda ugu dhacdo bay galey la ordayaan waa dan kale laga leeyahay ilaahay laakiin dadkayga ha fahansiyo baan maalin kuwii markii noo yimaadeen ba waxay yiraahdeen saddex baan jilaynaa haye saddex baan jilaynaa waxaan jilaynaa aqoon-yahan iyo waxaan jilaynaa bay yiraahdeen iyo waayeelkii waxgaradka waayeelkii waxgaradku waa isku mid bayaan wariyaha waayeela markii la yiraahdo waa waxgarad ma aha aad isku qofkii guga weyn ma aha waxa la yiri yaa bad arkay dadkii dhammaan meesha fadhiyo waxay yiraahdeen waa la sugtay anigu inaan TV ka arka mooyee waligay bad ma arag anigu waa yaab anigu bad soo tiyaani ma halkaan aha marka anu reer badeed baan ah sax oo badan ka soo jeeda markaas waxa dhacday aniga farti taagay badda ana arkay baan waayahay waxa li heesay leeda heesaa ma taqaana ma yaan ina heesaa ma aqaan waaya huuri baa li huuriga ka ugu yar saxiimada ugu yar weeye baa la fuulayaa kuraas yareed baa saa loo dhigay iskoob baa naloo keenay kan xaaqinka amaarta ama fiiqinka la yiraahdo baa naloo keenay sidaana loo rogaya marna dhinacaana loo rogaya oo biyahaasaan loo kaxaynay markaas hees waxaa la qaadayaa la yiraahdo heewalbe dadkiina kuraastii dambe saaran inuu biyaha la leecleecay iska dhigay asaas dadku wada leeyahay waa wax naloo meesha dhul ku tustusay markaas waxaan leeyahay baddu way kacsan tahay aqoon-yahanka tuura aqoon-yahanka tuura dan baa ku jirta riwaayada u fiirso way tuuraan saan leeyahay buugtoodina ka daba daadiya cilmigii baa raacay wasaas markii doon leeyahay haya caruurta lama tuuri kare waa yeelka iyo wax garadkan hal la daadsho waa la daadsho yaa soo badbaaday
anigii oo naaqudihii ah iyo caruurta wadankii inteenaasaa ku soo haray waxgaradkii iyo cilmigii waa daadin waa cilmi weyn bay xambaarsantahay way daadina riwaayadda kale isla masraxan ku dhigna ayana waxaa la yidhi aroos baa wuxuu ka jiraa dhinacaas arooskan halkii ka sokaysa waxaa ah webiba ah sax webigan yaxaas baa afkaa ka haya beer baa ka sokaysa ninkan beer falatada ah oo beerta qota oo beer ku noolka ah baa dadka gudbiya aroos webiga geeskiisa kalena arooskii baa ka dhacaya arooskuna waa faamilkii sax markaasuu dadka lacag yar intuu ka qaato dhabarka saaraya sax annagii waa nala gudbiyey waxba ku joogjoogsaday xaggaasaa naloo gudbiyey gabar yar oo nala socotaa waxay tiri intaas baa aniga lacagna ma bixinayo haddaad lacag rabtidna waa ku siinayaa adoo aan dhabarkaaga isaarin ibar sida looga gudbo aniga hay gudbin laakiin sida looga gudbay bar way tiri gabadhii annaga way naga caqli badis annaga xaggii baan taaganno waxaan sugaynaa qof kaloo na soo qaado gabadhii yarayd way noo timid arooskii way ka qayb gashay haddana iyadii baa soo tagtay sax waxbay barato sax taasna dee kolley cilmi weyn iyo xigmad baa ku jira xilligaasaan soo bilaaba youtube 2011 baan soo galay ayana 2011 baa xilligaasaa kolley youtube noogu horreysay haya xilligaasaa noogu horreysay aad baa mahadsantahay maasha allah riwaayadaha aad jisho tiradooda ma haysaa maya laakiin ma qiyaasi kartaa maya waa tahay riwaayadaha aniga aan aad ku jeclaa ee aan aad ku daawan jiray dhowr bay ahayn mid waa tii masayrka oo niyo hadda aan rabaa inaan ku soo celiyo waa waayey baashu youtube-ka waa ka baxday niyo miya weliba waan raadi waan waayey riwaayada waa riwaayadda lama hayo waan waayey riwaayadaas kow dheh midii kaloo shukaansiga alla yaa igu sheega iyadana wadada waxaa kaloo midii iyadan cirada aad isu yeesheed ninka weyn odayga ninku dhali karaa ku dhaqi karaa aa iska dhigeysi aad iyo aad riwaayadaha macna hadda way badan yihiin riwaayadaha laakiin labadaas saddexaas ayaan xasuustaa hadda oo ah riwaayadihii aniga aadka waxaa weeye aad u jeclaa oo aan maxaa weeye mar walba aan daawan jirin oo dee sideedii si macnaha run ah iyo ku gashay marka riwaayadaha markaad jilayso dabcan waxaa jira caqabado marka riwaayadaha jilaysaan maxay yihiin waxyaabaha caqabadaha is leedahay way kaaga yimaadaan ama way idinka maartay caqabad badan ku noqdaan niyo caqabadu way badan yihiin oo dhinaca caqabadaha way badan yihiin riwaayad niyo qaran baa iska leh madadaaladan aan wadno qaran baa iska leh annaguna waxaan nahnay kuwa qarankaasi qarankana u faa'iideyn lahaa annaguna kuwa ka faa'iideysan lahaa baan waxa loogu talagalay masrax baa loogu talagalay anugu jilaabaan ah aniga jilaaga baan haddana waxaan ahay soo saare laakiin markii masrax ay tahay qaasim oo kala abwaanku wuxuu soo saarayaa erayadii lagu hadli lahaa xibinta anigu aan qaadan lahaa haddaan nacs jili lahaa haddaan nin waalan jili lahaa haddaan nin geesiya jili lahaa cabtooy haddaan jili lahaa waxaa isiinaya qaasim erayadii aan ku hadli lahaa waxaa isiinaya qaasim anna waxaan ku darsanayaa talentiga ilaahay ii dhaliyey ayaan ku darayaa marka caqabadaha aan haysta waxay tahay dee dad burburay oo dalkooduna dal burburay dadkiisii baan nahnay dal burburay dadkiisii baan nahnay waa iska garan kartaa caqabadaha ay hor yaala waxay tahay ma helo qalabkii ma helo dadkii anigi sidaan rabay inaan wax u jilo dadku uma wada jilayaan dadkii bariis baa maanta intii youtube-kii laga dhadhamiyey baa la wada ordaya qof kasta waad aragteen heerka uu marayo laakiin anigu waxaan ku yidhi ayadaan youtube jirin baan ku jiray oon jeclaa oo aniga marka waxay ahayd in qarankuna iga faa'iidaysto aan wax gudbiyo anigana aan faa'iidaysto wax sii korarsado caalamkana aan magac leeyahay meel allaala meeshaan maro salaan la wada saaro laakiin maanta waxba ma ihi qaran bad wax ku noqon lahaa qaran baa ku noqon lahaa meesha hadda wadani ka leeyahay waxa uu raadinayo magac wax buu raadinaya wixii buu lahayn anigana sidaas oo kale waxaad jishay duqnimo oday masayro waa jishay waan ahay waxaan u maleynayaa noocaada jiray waaba yaryahayba noocee ayaad markaad jilaysay aad waxa weeye aad ka yar xumayd oo islahayd alayla ayaa kuu bedela noocan riwaayad macnaa qaybta kaga jirtay niyow boos xun aad kaga beegnay maya weligay ma gelin anigu badanaa waxaan ugu jeclahay soomaali baan ahay horta sideed ahaan dadkaan isbaro soomaali baan ahay soomaali reer waa ka ah intaan reer tihiin reer waan ka ah laakiin soomaali baan ahay si fiican
soomaalida dhexdeeda horta anu ka dhex ugaarsadaa waxaan arkaa mid islaanta u roon waxaan arkaa midka u daran marka waxaan soo qaataa ka ugu daran ka u roon ma soo qaato anaa doorta badanaa anay iga timaadaa anaa doorta waa waxaan aan arkaa waxaan jeclahay ayadoo sideedii ah inaan qofkii soo hordhigaan jeclaa saan waxaan arkay mar baan waxaan ahaa mukhallas baan ahaa islaan dhoofayso hadda xag yar meel maqaayada yar ka furato oo jeclaan la maalin aad u tagtaan waxay tiri anay ugu dhacday bay tiri anoo mar labaad raba inaan sameeyo baan erayadaada ku baaqday bay tiri af macaanida iyo sidaan dadka u soo xiregelinaysin iyo qof walba ha iraada elborkan ha ka fikri dad baan noo jooga ka dubay hadaa tigid ugu adag ka ugu adag xag yar baan hoosta ka dhiibaynaa adiga tartiibtaada anigana ha sheegin meel aan taagnahay diyaaradan waa ku saarayna hadhow xagga markaa tagtina suuliga ku flash passportka ma wixii macnaha saxana loo mariyay magafal mariya waxa dhigtay wax diyaarad baa ma saarnay dadka libi ma jirto wadada ka dhawaadir libi ma jirto libi waxa marsiinaysaa wadada ka dhawaadir adi dadka ma waa wacyi gelin dadka waha marka waxay jira waa ku baaqday bay marka aniga waxaan jeclahay dhinac horta sida ahaan barwaayada waxaan ugu jeclahay dhinaca xun baa ugu jeclahay maanta hadda tira cabshuur horta meelaana ku fiicneen baa jira hadda tira cabshuur oo jacayl jil laba eray isma aadin wallahi marka adu dilitaan iyo xaq wax la kharbadayay iyadoo uur la in la karbaashay in lagu masayray in biyo loo karkarinayo xasan jeclahay oo adiga iyo jacaylku gabi ahaan bay isku ficnideen ma jacaylku waan jeclahay hay jacayl laftigiisa laakiin jilidiis ma jacayl laftigiisa horta waan jeclahay sax laakiin jilitaankiisa niman reer muqdisho liyo ama dhinaca koonfurta ayaa ka active ku ah anoo gabadhi jecel ana xalan ana yaa he naati ilmihi yarkaale tii ku dhashay meeda markaas inaada ka xanaaqaysa marka hore ma kama xanaaqaysa waxa way ku soo barbaartay hooyadooda la leeyahay bay aragtay iyadina caadi aadi okay waata waxaan daawaday riwaayad adiga gabar kale oo macnaha xaaska ku jirays adoo odaygeeda aad tahay oo xaafad dariskiina aad u dhibteen oo qashinka gurigiina ka soo qaadad hortooda dhigaysan nin uu qisada dhacday way dhacday kuwii sameeyeyna oo filkan dhigayay waxaa la yahaa daris xumaa la yahaa daris xumo laba daris baa isku dhacay aad bay isugu xumaadeen xarig bay gaartay xataa oo la isxiray oo habeenbarka xataa guryaha la isku soo garaacay oogiya baabaa dhacay markaas waxaan arkay islaantii oo habba loo dhaardhaaranayo caruurtii oo soo ordaya oo qashin tuuraya oo guriga hoosta u gelinaya odaygii laftiisa la ordaya anigana tiibaan keenay inta orday baan hoosta u soo gelin hadhowtina islaanta waxaan ku oranayaa iska dhici ninkii waa soo baxaya saasuu isku soo taagay waa saaxiibka iga re saasuu isku soo taagay markuu isu soo taagay baa laftigiisa